أي شذن ويا فوفين كديب دبكي وهو العين انت صومال مود أي دبكي شذاين إلا أو إسكا قبصده أو كحوجيستو يا الله buurta markay dabka ku shideen waa hor fariistaan waxayna sugayeen natiijada ka soo baxdo ee sida ay noqonayso buurta dadkaas waxay ahaayeen dad sabar badan hal habeenna maysa seexanin ilaa ay buurta ay ka baaba'do maalmo kadib dabkii ayaa damay buurta birta ahaydne wayba dhalaashay gebi ahaanteeda sidaas ay meesha uga baxeen deegaankoodana ku aadeen musalsalkani wuxuu gaari u yahay muqdisho cable kadibna guryahooda miyay tageen haa guryahooda ayay tageen cadowga deegaankooda ka haystana way ka xureysteen iyagaana degay maamulkooda ee lahaayeen ayay dib mar labaad u asaasteen kadibna waxay bilaabeen adduunka daafihiisa inay ku fidaan ee mar labaad dib u qabsadaan hadda waxaan rabaa inaan idin weyddiiyo hadalka ninkaas halgamaag ahaa oo ciidankiisa u sheegay idinka maxaa ka faa'iideen ii sheega hadalka maanta aa idin sheegay xigmadda aad ka hesheen umuur sababtay deegaankeena ugu direen maxay tahay ugu horrayn isaga ayay rabaan inay ka dhigaan ninka canshuurta u soo aruurinaya qabiilkiisana waxay rabaan magaalada Zuguud inay dejiyaan sheekada canshuur qaadis waa ay ka weyn tahay walaal waxaan u malaynayaa arrin kale inay ka hoos jirto haa arrin kale way jirtaa waxay rabaan annagii umuur inaan isku dhacno ugu dambaynna isaga ay garab siiyaan annagana nala ka guulaysto bilihii la soo dhaafay waad aragtay maamulka baylak annaga ayay gacanteenna ka bixiyeen haddana waxay rabaan annaga inayna burburiyaan maxay sidaan u samaynayaan sabab waxay ogaadeen awooddeennu inay korortay oo aan nahay dad wax iska dhicin kara maamulna samaysan kara ujeeddada dhabta marka hore waxay rabaan annagii umuur inaan isku dhacno dagaalka annagii amuurna dhex maraya markaan annaga awooddeenna ay ku baaba'dana innagoo ah dad daciifa inay noo yimaadaan oo si tartiiba gacanta ay inoogu dhigaan hadda waxaan wada aragnaa dhammaanteen dabkan inay iyaga gacmahooda ku shideen dabkan ay shideen wuxuu noqon doonaa dabkii isla ayaga ay ku guban lahayn annagana aan ku guulaysan lahayn insha allahu tacaala sidaas ayaan rajaynayaa haa hogaamiyaha hadalkiisa maxaad ka faa'iideen ii sheega dhibaato walba ood la kulantay inaad u dulqaadato ismaantan waa kaa qaldantay mar kale fikir ee jawaab saxana siiye in awood la isku keeno ibros waa kaa qaldantaha waxaasna fikir maaha fikirka sii badiyariisow shaafici hay macallimu haddii aan isku dayo aniga oo aan ka jawaabo xigmaddan aniga ka faa'iidaa waxay tahay hogaamiye dadka hogaaminaya hadduu yahay nin karti iyo awood leh dadkana waxay noqonayaan kuwo karti iyo awood leh laakiinse hadduu yahay mid daciifa dadkuna way daciifayaan laakiinse haddii uu yahay nin karti iyo awood iyo caqli intaba leh siday birtaas u dhalaaliyeen ayay meel kastana u mari karaan dunidoo dhanna ay u qabsan karaan maasha allah shaafici maasha allah xigmaddaas oo keliya ma ka faa'iidanaya mid kaleo aan ka faa'iidna ayaa jirta aa idiin sheego qof walboo bini'aadana riye iyo hami ayuu leeyahay riyadiisana inay u rumowdo ehelkiisa ayaa garab ku sii kara dadkaasna adduunka inay maamulaan waxaa sabab u ahaa riyadooda oo u rumowda birta ayay dhalaaliyeen ka dibna seef ayay ka dhigteen awooddoodana way isu geeyeen
cadowga ugu dambeynne jilbaa ayay ku fariisiyeen insha allah ilaahay waxaa ka rajaynaa riyooyinka aalena ilaahay inuu noo rumeeyo subxaana wa tacaala aamiin ilaahay waxaan ka magangelaynaa riyooyinkeena inuusan ka dhin kuwo qiyaaliyo maalaayacniya aamiin aamiin maclimu waa idin